السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان سوري هذا هو يوينك يقول حرن ميلو الباتشوكتان ومركلة يا موقال عصب وتيله ما توحني وضع وحيابه إن شاء الله هذا وين عرورتين وأنفع دونا قاسة عرورت تشيرو كو يتبن بلود وهرنتي كسرو channel كان وحنسوق ليا وحيابها عرورت قصة مر والبو مركزي أوقفها إذا ستيد channelka mar walbo like badan noo saar insha Allah anigana wax badan ay tirisaa adigana cashirada ayaad la socon doontaa subscribe na saar channelka siina share garay insha Allah si walaalo kale ay uga faa'iideystaan intaas kadib meeshaan waxaad uga jeedaan waa qamadiga ana waxa u aqaana sareen ama head way iska ag dhowiin saddexdooda laakiin qamadi waaye qamadi la soo jajabiyay oo makiinada la marshay waad soo dhaqee waad soo nadiifinee waxa kale aad u baahan tahay 2 xabo oo timir ah iyo sabiib iyo lows intaas timirta iyo sabiibka iyo lowska waad dhaqeedaa ka bacdi biyo ayaad la dhigaysaa muddo 30 daqiiqo ah biyo diiran biyahan waa inay noqdaan ama biyo kulul meel markaad la dhigtid waxaad soo qaadanaydaa qamadigi oo ku jajabnaa oo ku diyaarsanaa digsi ayaa dabka saaranee digsigana waa inuu ku noqdaa mid uumita leh oo macnaha wax ku bislee karo digsiga dabka markaa saartid waxaad ku shubanaydaa qamadigi jajabnaa oo adiga bakeeri haafkiisa ah iyo biyo oo ah 2 bakeeri digsigii waa dabooleysaa dabka meesha ugu hooseeyo ayaad u geynaysaa iskiisa markuu u bislaado ayaad ka soo dejinee waxaad soo qaadanay blenderka wax lagu shiido waxaad ku shubanaysaa timirtii iyo lowskii iyo sabiibkii oo ku yaalay meel oo biyaha diiran kuugu jiray ma ka daadinaysid biyaha diiran waxaad isugu geynaysaa blenderkii ayaad isugu geynaysaa ka bacdi sareenkii ayaad soo qaadanaya oo biyihii dhameystay ama qamadigi kadib waxaad sameynaydaa blenderkii ayaad isugu geynaysaa soo biyihii ku dhameystay oo soo bislaaday jilcay timirti biyaha wadatay oo biyaha qandaca ah ku jiray iyo lowskii sabiibkii iyo qamadigi oo bislaada blenderka markaa isugu geedid waad isku shiidaysaa markaad isku shiidid waxaa ku diyaarsanaydaa weelka ugu talagashay beebigaaga inaad cuntada ugu shubtid markaad ku shubtid waxaad soo dhalaalsanee subag ama butter ama hadii kale saliid oil leaf ayaa korka uga darsanay waad isku walaaqeedaa ka bacdi waxaad soo qaadanaydaa caanaha aad ugu talagashay in aad siidid caruurtaada qaasatan caano fiican waa inay ku noqdaan ilmaha 11 bilood markay jiraan aad waxa u fiican caano fiican oo tayo leh inaad ku bilowdid sanad markuu u xirmo caanaha xoolaha siiso si ilmihii uu kuugu noqdo ilmo awoodiisa kaala arag ah badanaa caano booraha faa'iidooyin badan ma lahan wax waaye ilmahana jiljileec iyo koriimo xumo ayay ka qaadaan kaliya miisaan kordhin oo waxay leeyihiin baruur ah laakiin lafaha markii runta la sheego ma koriyaan caanahaas waxyaabaha caanaha koriyo waa caanaha fareeshka ah oo xoolaha ka yimaado ama geel ama loo ama ari nooca doonaan ha ahaadaan inkastay aad u si fiican tahay in caanaha lo'da caruurta sanad markay gaaraan lagu bilaabo marka waxa waaye cashadan ama qado ka dhigo ama casho ka dhigo aad weyn ayaa uga faa'iidi doontaa qaasatan casho ay aad ugu fiican tahay in aad uga dhigatid beebigaaga maadaama habeenkii ilmaha ay u baahan yihiin wax fuul ah ay ku jiiftaan oo wax u tirayo culus in la siiyo ayaa aad u fiican waqti horena si ay xoogaa markay iska dhidhiilaan oo kale nafis caloosha uga dareemaan ka bacdina caanahooda ay u cabaan mar walbo waxyaabaha waxtarka leh ayaa nii soo gudbiyaa gabdho isku daya marka meesha inay iga dhaqaajisaan oo mar walba like-ta ay saartaan ii share gareedaan muuqaalada daawataan waayo wax badan ay tiraysaa adinkana waxbaa ka faa'iideysaan meeshaan ilmaha 11 bilood markay jiraan ayaa loogu talagalay cuntadan in la siiyo si ay u xoogeystaan lafahoodana si dabiici ah ay ugu koraan waxaa ku jiro qamadiga waxyaabo badan oo caruurta lafahooda u fiican mid kale
lowska iyo sabiibka iyo timirta intaas aad weyn waxay uga caabinayaan cunugaaga in ay miisaankiisa iyo araga indhihiisa maqaarka iftiinkiisa dhammaan ay isku baalansi gareeyaan. marka isku day waxyaabahan oo kale in aad mar walba aad ugu dadaashid aad u sameedid. waan arkaa kommentiyadiina quruxda badan sida ay ugu duceysaan. ilaahay haniga abaalmariyo dhammaanteena qeyrka ayaan isla jecelnahay insha allah. anigana waan ii dadaalayaa oo waxyaabo mar walba waxaan ii soo gelshaa waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed. markaan arkay hooyooyinka Soomaaliyeed inay u baahan yihiin caruurtooda in cuntooyinka qaarkood ay ku liitaan ama wax focus ah la saarin cuntada caruurta ah, ayaa waxaa fikrad waxaa igu dhalatay ah inaan iga faa'iideeyo waxyaabaha caruurta ay ku koraan. dhan walba ha ahaado, muhiimada ma aha cunugaaga mar walba miisaan xoog leh inaa u raadisid, laakiin muhiimada waxa waaye waa ilmo qurxoon, arag ahaana u qurxoon, koriima ahaana u qurxoon, maskax ahaana u qurxoon. waa in saddexda dhanba ilmaha ay isla socdaan aysan kala hormarin. mar walba ku dadaal cunugaaga ilaalinta caafimaadkiisa, ilaalinta maskaxdiisa oo waxyaabaha afkaarta ah aad ku shubeysid ama meelaha kale uu ka soo qaadayo in aad mar walba la socotid ayaa wacan, iyo ilaalinta koriimadiisa oo dhan walba isugu jirto. marka hooyooyinka badankooda maasha Allah waa hooyooyin dadaal badan. mar walba dadaalka ay sameynayaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu la garab galo, halkaas ka sii wada. hooyooyinka ugu cusubna waxaan leenahay waan jecelnahay ku soo dhawaada channelkan si wax badan aad uga faa'iidaan sida ay uga faa'iideysteen hooyooyin badan. nafteenana mar walba waxaan ugu dardaarmeynaa insha Allah taqwada Ilaahay waaye. mar walba taqwo Ilaahay hadaysan meesha oolin wax wanaagsan ma yaaliin. markasto aad wax sameynaysid bisinka u qabo cunugaaga, Ilaahay tala saaro in waxaan caafimaad uu kuugu helayo, in uu kuugu qurux badnaanayo, in sida aad rajeynaysid uu kuugu noqonayo. waayo wax kasto niyada ayay ahaatay. acmaal walba acmaal aan niyad loo heen si walba aad ugu dadaashid ama aad u sameedid wax natiijo ah aad ka helaysid malaha. intaasna tala walaaltinimo ayay iga tahay. hooyooyinka mar walba u baahan waxyaabahan oo kalena waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideystaan channelkan, waayo wuxuu u dhisan yahay hooyooyinka dhan walba. haddii ahaa lahayd hooyooyinka uurka leh, hooyooyinka haysta caruurta yaryar oo dhallaanka umusha ku jiro, hooyooyinka haysta ilmaha 6 bilood wixii ka bilowdo ilaa iyo ilmaha dhexe oo 10 sano iyo meelahaas ku eg. ma fahamteen gabdho? marka muuqaalkeena intaasuu noogu egyahay. hala sheer gareeyo, hala like gareeyo. waxaan rajeynayaa insha Allah muuqaal midkaan la mid ah kana tayo badan in aan videoga xigo aan igu soo gudbiyo. la soco. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.